هلو السلام عليكم قريب رواقة نرجعنا وفتحي عبسية كسر هذا قيب تشناد إيش كذي محدو وحين عمري سمركي ملكو كسر نقطة ماراثون كي براكتس كي وهو يدير لسوء هذا الشيء كنت ورهرس على مرة البوضة حلا ويوجاين إن ملكو أي إن مانتا براكتس كي يوجه الرئيسي توبر كي يوجه الرئيسي ماراثون كا ورد كسوس عدا تبانك مايلا هي مريسي كسويدتني إيجا ورم بلا أنت واسع تاجنتينو واسكول مانتينو مرة بعد وكاك تاجني هاي يا مرنا وحنا ملانا يسوي هذا نعمل كم يدو قران سنة يو سداوي حجران يا حالكم بشمبر كيس ولا دولابا what's going on كفتن بيورني بديت مركاسي كتير ملكو mom stop it what do you mean أنا قصور هذا ما بعرف أدو are you stop stalking me please now حيس كده أيوه وحن كويدي إنا يلا يده هذا إنك dad badanoo lodka yagiyaba hablo madow iyo hablo maaragtay ajnabiya ka dhalay caruure kulli aabihi waan garanaynaa markaas halka ka soo booday aabaheed ina ayaa la yiraahdaa weydii markaasay tiri you guys are crazy labadiinuba waa waalantiin shaqo kale ma haysaan aniga mooyaane markaas yiri ma taa weydii ina ayaa la yiraahdaa uu soo dhaqaaqayo islaantii buu soo daba istaagay hooyadeedu soo daba istaagay dad iska yaraan ku dhalay yadiibu sideedii waa la maalaheedii halkaas soo istaago markaas uu yiri ina ayaa la yiraahdaa ina ayo markaas ay tiri hi dad oo halowna ma jirto miya inan ka islaameed baa ku mashquultiin markaas uu yiri maya beeska waran gacalo soo ma fiicnid de wax walba la socdaay halkaas aan kala soconaay waxa waan ognahay wax walba naga daayo ina ayaa la yiraahdaa waxa laga yaabaa inaanu aabihiin naqanay markaas ay tiri I don't know his last name is Kennedy or Kennedy ma garanayo magaciisa waxa uu qoran Kennedy something Kennedy markaasuu yiri Kennedy abeed soo booday ma ina Kennedy baa dhalay miyaa talo ina Kennedy baa dhalay dhowr Kennedy baynu leenahay waan aqaana dhowr Kennedy baynu leenahay markaasay hooyadeed soo booday tir waar balukaadi dhowr Kennedy baynu leenahay Kennedy dadu mareer qoyun bay haayeen de Kennedy reer koonfureed ba soo ma jiraan markaasuu yiri ha laakiin waa la garanayaa Kennedy dadu ma badna magaca reer Kennedy waa in yar waa la isku deeqana markaasay milgo she kind of got annoyed waxay ku tir dhageysta inankani boqol waxuu maaragtay impressive laga ogaado ayuu leeyahay maxaa qabiilkiisa ugu boodaan horta ma nasan kartaan miyaa Soomaaliya daatiin ilaa qofka qabiilkiisa ogaataan besides you guys know aniga wadi ogtiin naan waxa dan kala hayn I don't care about qoladiis iyo wuxuu yahay he's just real teammate kayga markaas hooyada tiri anaga aan wareerna teammate kaliya ma aha ana wareerna naga daawayo waa teammate kaliya ma aha waxa weeyaan ilaa maalinta aragtay waan ognahay oo maad seexane markaas ay odaygiyo islaantay high five siiyeen gabadhoodii bay dacaydeenayaan markaas ay tiri milgo anyway I gotta go markaasuu yiri abeed qorshuhu caawa maxay yaa abe what's going on caawa markaas ay tiri Kennedy gurigiisa aan isugu tagaynaa caawa alla labadoodii qosol hooyadeedii abeed Kennedyda wagar xaajadu waa xaajo meel fog maraysa markaasay tiri dhageysta nothing is happening between us we're just friends waxba nagama dhaxeeyaan waa waalantiin take it easy 25 jir baan ahay xagee igu dadajinaysaa every third Saturday sabtida saddexaad bil kasta qof baa gurigiisa la isugu tagaa weekend it just happens in gurigiisa la isugu tagay weekend gurigiisa la isugu tagay marka that's all markaas yiraahdeen waagaaga gurigiisa la isugu tagay qabbay ku siisay iyagoo wali sii hadlaya dushii bay tagtay baad bay qaadatay way ranasatay naabay hadana yara qaadatay 6 o'clock bay soo imanayeen 5:45 uberka hoos buu taagnaa waa old money xaafad ah oo dadkii lacagtii hore dadkii lahaa ay degan yihiin oo area ay caan ku yihiin weeyaan old money ay caan ku yihiin dadka lacagta leh maaragtay lacagtoodu railroadska iyo tareenada iyo waxa ka shaqaystay marka uberkeeda iskaga dhacday xaafadu markaa kama fogaayada 15 minutes ama ka yar bay u jirtaa gurigii markay tagtay gurigii markuu gaadhigii hor dhigay waa guri buur buu yara saaran yahay guri aad weyn ma aha guri ilaa 3-4 qol oo eeg laakiin kor iyo hoos laba dabaq ah oo aad moodo remodeling lagu sameeyo la modernize gareeyay
laakiin meel saroo buuru saaran yahay the entire city ayuu dusha ka eegaya Seattle downtownkii baa halkaas soo gangaaman Lake Washingtonna waa hoostaada waxa weeyaan it's so beautiful waa real estate waxaa la yiraahdaa location it's the best location $2 million kama yara waa xaafaduna waa xaafad qaaliya guriguna meeshuu ku yaala waa prime waa the best location magaaladu dhasaa dusha uga soo eegaya hoosta iska qanjiirso waxay tiri talow way ogtahay ayeeyadiiba cadaan ah hooyadeed markaasay hoosta waxay iska tiri talow malaa lacagtii ayeeyadiiba gurigani kasoo jeedaa it's something special yeah the wiil yaroo dhalinyaraa hadduu ugu bato waa 29 jir xaguu maaragtay gurigaa 2 milyan ka keenaya albaabku iska furnaaba dadkii marba qof baa imanayay soo galayay on time bay ku timi dhowr qof bay albaabku kulmeen oo kale saada usoo gashay waxaad moodaa inuu eeganayay halkaasoo kale soo taagnaayo dhowr qof la taagnaa markaa marba albaabku eegaya qofka soo galaya sidii qof anticipate garaynaya sidii qof wax sugaya oo kale maaragtay qof eeganaya markii milka soo gashay isla markiiba indhaha isku dhufteen oo kale wuu acknowledge kareeyay saasuu yidhi dadkii buu adigu wax yar la sii hadlay iga raalli ahaad uu yidhi wuu soo dhaqaaqay gurigiisaa la imanayo dee dadka mar walba uu soo welcome garaynaya dadka iyada laakiin he made sure albaabkii wuu kusoo miid gareeyayba markaasuu gacantiisa u dhiibay sidan oo kale gacantiisa ugu dhiibay gacantiisa markaa automatically iyana gacanteedii bay gashatay sidii let me take you in you know guduhu geliyay markaa dadkii oo dhan way soo wada yimaadeen miis dheer baa yaalay oo ay maaragtay cuntadii ku taxnayd cuntada markaa waxaa ku jira isla markii waxay isha ku dhufatay sambuuse markaasay yaabtay ku tiri aadna way sambuuse jeceshahay you have sambuuse I see sambuuse markaasuu ku yidhi of course sambuuse and Somali rice markaasay tiri did you cook this markaasuu yidhi maya after all I'm Somali you know you gotta have your Somali baan haylaawin you know qof kastoo Somali waa inaad taqaanaa meeshaad sambusaha ka helisid iyo meeshaad bariiska ka helisid markaad dad aan Somali ahayn aad soo casuntid markaasay dadkii ajnabiguna aad bay u sambusa jecel yihiin sambusiiba markiiba lagu degayo dadkii markaasay intay gacantii kala baxday ku jiray waa risiidaa sambusahayga doonta sambusaheedii bay 2 xabo blender kusoo rantiyay cabitaan yar bay soo qaadatay markaasuu yidhi help yourself dhowr qof oo kaloo soo galayay buu u tegoo soo dhaweeyey xoogaabay iska mingal garaysay marba qof la hadashay viewgii bay ku indha daraandartay markaa indha daraandar viewgii quruxda guriga meeshuu eegayo dhowr qof baa iyaguna balkonigii taagan oo ku tiirsanoo magaaladii halkaa ka daawanaya markaasay markiiba banaankii bay ula baxday sambusaheedii iyo in yaroo bariisa iyo in yaroo salada iyo wax yaroo ku guratay banaanka ula baxday markaa qof shaqaalaha baa jooga oo dadka serve garaynaya xafladna maaha iska casho yaroo iska simple ba iska ahayd anyway banaankiibuu markay u baxday kasoo daba baxayo markaasuu kula tiirsaday meeshii markaasuu yidhi I see you're enjoying the view waxaan ku arkaa inaad maaragtay viewgan quruxda badan magaaladii daawanay sidoo ka heshay markaasay tiri alla qurux badana aad baan uga helay of course waa prime location waa halku doonayo qof waliba guriga jooga inuu halkan istaagu doonayaa aan ka yara daawada magaalada Idaa markaasuu ku yiri markaasay ku tiri imsa halkan deganeed markaasuu yiri imika 3 sanadood baan deganaa laakiin waan ku koray gurigan ku koray markaasuu yiri ha markaan laba jir ahayn baan gurigan soo guuray ayeeyaday baa gurigan iska lahayd way garatay markiiba all money inuu ka yimi all money cabaar bay yara sheekaysteen markaasay tiri wow it's a great place markaasay tiri waa meel qurux badan oo lagu koro markaasuu yiri ha I love it marka hooyaa 3 sano ka hor ka guurtay inay kireysay doonaysay marka anaa ku yiri anaa degaya iyadna waa way la rabtay waa intay doonaysay inay wax ka reebay rabtay oo laakiin dib habeyn baan ku sameeyay markaasuu yiri guriga mar baan si fiican ku tusi doonaa projectkaas dib habeynta ahaa markaasay tiri what do you mean dib baad ii tusi doontaa markaasuu yiri ha anaa dhisay I tiri you're a carpenter too markaasuu yiri ha aniga iyo 2 of my best friends baa isla dhisnay marka waad aragtaa guriga remodeling lagu sameeyo very modern house yahay hoosta iska gujisay waxay tiri ninkuni maxaa
tolo what's going on wax walba waa ku fiican yahay everything labadooda midba midka kale leeyahay qofkani wax walba waa ku wanaagsan yahay maxaa ka siya waxay rasiisu booyina guduhu ku noqday mise heestii dirgax bay nood iskaraysay inay baxayso dirgax la daaray markaas intay cuntadeedii dhigtay soo cartay that's her favorite song soo cartay gudihii bay soo gashay mise keeg baa la soo saaray miis markaasaa milgo iyadii baa loo congratulate garaynaya she couldn't believe it waad iga khajil siinaysaan ilmaa isku soo taagtay markaasuu intuu u yimi oo garabka saa usoo qabtay buu yidhi waxaa iska daayo kaalay keega noo jar marka inankii kabtanka ahaabaa wuxuu yidhi hambalyo waan ku hambalyeynanaa projectkaagu waxa weeyaan waa guul usoo hoyatay humanity and you are amazing qof cajiiba baa tahay we are lucky to have you markaasuu bilag soo jeedu ku yidhi noo jar haddaba keegii bay jartay bilay slicekii ugu horreysay intuu gooyay buu iyada u dhiibay keeg qaali oo maaragtay special order ah intii kalena isagaa dadka u jarjaray oo marba qof u dhiibay inan baa u timi milgo ku tiri heestan mataqaanaa sida loogu ciyaaro markaasay milku ku tiri well I believe every Somali kind of knows sida loogu ciyaaro markaasoo may bari kartaa markaasoo well I can try waan isku dayi karaa markaasay keegeedii intiiba qalaf intay ka siisay keeg macaan buu hayo dadku way wada dhamaysteeno markay istiri soo dhaqaaq bay waxay aragtay bilow halkan oo kale soo taagan oo isaguna qof tusaya markaasay tiri isagaa ku tusaya isaga markaasay gabadhii bilo ku dhaqaaqday tiri adaa dadka tusaya miyaa dirgax sida heestan loogu ciyaaro markaasuu milge eegaya markaasoo oranayaa come on markaasay no markaasuu u imanayaayo soo jiidayaa markaasuu we have to show dadka waa inaynu inagu tusnaa it takes laba qof keligii lama tusi karo marka labada yadaa idin tusaynaa milgo you have to come markaasoo no waxyara qajilaya iska dhigaysaa markaasuna come on gacantu soo qabanayaa dadkii oo dhami round bay soo gelayaan circle baa la gelayaa heestii oo cirkaa maraysa dee labadoodii dance floorkii bay ku galgalo miyaa tiri mise ku warwaro miyay ahayd labadooduba kala daran heesta aada bay u jecel yihiin waa dhalinyaro waa in shape waa gorgeous that heestii bay garanayaan they can dance wow halkaasay ku dhammaanaysaa qaybtii afraad ilaa iyo qaybteena shanaad iyo DC idinkaga iman doonta Washington DC oo beriyaada iyo khayr iyo barwaaqaynu isku ognahay please share and discuss ka sheekaysta comments ka soo daaya heesaha soo gudbiya ugubnima xishooleyl nugay lawaashe afka kama cadayn karo ergana uma diran kare caashaqu ogaysis maleeyay niyadanka ogsaday markaan furay albaabkii awrkii cirkaan xalay arkayoon ku muudo muddo ku ag wareege gabadh baa ii soo dirtay marka oo commentka kusoo qortay aada iyo aad baad mahadsantahay waad isgaranaysaa khayr baan idin rajeynayaa magacaaga next time kaan soo sheegayaa inaan qortaan ilaawey hawshaa igu badan garaaleho khayr baynu isku ognahay love you guys take care you will love this story stay tuned nabade